Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waxaa maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada ka buuxay warar la sheegayo in uu dhagax weyni ku habsan doono dunida, taa oo dhalisay in dadyowga caalamka ay isweydiiyaan ma xaqiiq jirtaa arrinkani mase laga yaabaa in waxyeeladiisu ay dabargoyso nolosha ka jirta dhulka. Magacaygu waa Maxamed Xuseen. Ku soo dhawaada muuqaalka maanta. Haddaynu dib u milicsano taariikhda, tani ma ahan markii ugu horeysay ee xagga cirka ka yimaadaan dhagaxaan. Waxayna dhacday 65 milyan oo sano ka hor. Dhagax baliciisu dhan yahay 10 kiiloomitir ayaa ku habsaday gacanka Mexico, ka oo sida la filayo dhaliyay dabargo'ii xayawaanada dinosaurka iyo xayawaano kale. Iyo weliba sida ka dhacday dalka Russia sanadii 2013, taa oo aan muuqaalka qaybtiisa dambe kaga hadli doono. Balse in waxyaabo ay ka soo dhacaan cirka waxay had iyo goor walwalgelin jireen bini'aadamka, taa oo ugu dambeyn naga dhigtay in aynu ka cabsano oo waxaan ka yaabnaa in maalin uun dhagax weyni uu cirka ka soo dhici doono, ka oo sababi doona in bini'aadamka uu dabar go'o sida xayawaanadii horeba ay u dhammaadeen. Balse alla weyne ayaa ka warhaya goorta iyo sida ay tahay in dunidani lagaga hayaamo. Haddaan u guda galno, waa maxay dhagaxan? Wakaaladda hawada sare ee NASA ayaa shaacisay sanadii 1998 in qalabka ay kula socoto waxyaabaha ku soo wajahan dhulka ee Near Earth Asteroid Tracker System uu soo qabtay 2 dhagax, kuwa oo ku soo wajahan xagga iyo dhulka, ayadoo ugu magac dartay 1998 OH iyo 1998 OR2. Midka haddeertan uu walwalgeliyay dadyowga caalamka ayaa ah 1998 OR2, ka oo masaafo dhulka u dhow mari doona taariikhdu markay ku beegan tahay 29 Abriil 2020. Waa maalmaha ina soo aadan. Dhexroorkiisa ama diameterkiisu wuxuu dhan yahay 1 ilaa 3 mayl, taa oo u dhiganta 1.6 ilaa 4.8 kiiloomitir. Wuxuuna ku socdaa xawaaro dhan 20,000 mayl halkii saacba. Waqtiga ugu dhow ee dhulka ku soo aadayo ayaa lagu qiyaasay markay saacadu bariga Afrika tahay 12 duhurnimo. Waxaa laga yaabayaa inaad isu su'aalaysaan, dhagaxan miyuu ku dhici rabaa dhulka? Jawaabtu cad waa maya. Sida wakaaladda NASA ay xaqiijinayso, dhagaxa 1998 OR2 wuxuu mari doonaa meel dhulka u jirta qiyaas 4 milyan oo mayl. Waa in ka badan 16 jibaar masaafada u dhaxaysa dhulka iyo dayaxa. Balse Alle ayaa og xaqiiqda iyo waxa soo socda. Iyadoo ishaacada ka buuxda baraha bulshada ay dhalinayso walwal badani, lagana yaabo in dhagaxa cabirkan dhahay sababi karo musiibo aad u weyn haddii uu ku dhaco dhulka, ma jiraan wax fursad ah oo ugu soo dhici karo dhulka sanadkan. Si kale haddii loo dhigo, wuxuu inoo jirsan doonaa ugu yaraan 16 jibaar masaafada u dhaxaysa dhulka iyo dayaxa. Wakaaladda NASA waxay ku tilmaamtay dhagaxan in uu yahay mid aad u halis ah. Ma ahan in uu khatar ku yahay dhulka, ee wuxuu buuxiyey shuruudda waxyaabaha ay NASA ugu yeerto waxyaabaha aadka u halista ah. Shuruudda oo ah haddii cirifka sheygaasi uu soo jaro cirifka uu ku wareegto dhulka in ka yar 4.6 milyan oo mayl. Dhagaxan ayaa la saadaalinayaa in uu dib mar kale u dul dhaafo dhulka 18 Meey 2031, wuxuuna mari doonaa meel dhulka u jirta 12 milyan oo mayl. Labada mar kale ee xigta ayaa noqon doona 2048 iyo 2062, wuxuuna mari doonaa masaafo ka sii dheer midda haddeertan aan soo sheegnay. Marka kaliya ee u soo dhowaanayo dhulka ayaa la saadaalinayaa in ay tahay marka ay ku beegan tahay taariikhda Abriil 16 2079, asagoo mari doona meel dhulka u jirta 1.1 milyan oo mayl. Dhagaxaantan ayaa sida caadiga ah waxay ku dal wareegaan hawada sare, sida meerayaashuba ay sameeyaan. Haddaan tusaale u soo qaadano, dhagax midkan la mid ah ayaa si nabad ah nagu dul dhaafay maalinkii Jimcada ahayd ee 1 Sebteembar 2017, saacadda Geeska Afrika ay ku beegneed 9 ama 3 galabnimo. Dhagaxan ayaa lagu magacaabaa 3122 Florenza 1981 ET3, ka oo maray meel dhulkeena u jirta 4.4 milyan oo mayl. Waa 18 jibaar inta u dhaxaysa dhulka iyo dayaxa. Mar kale aynu dal mari doonaa dhulka
markay taariikhdu tahay Sebtembar 2057, isagoo baliciisu lagu qiyaasayay inta u dhaxaysa 2.5 ilaa 5.5 mayl. Hadday sidaa tahay, yaa faafiyey inuu dhagaxani ku habsan doono dhulka misna burburin doono. Dadyowga isticmaala Facebook ayaa ugu badan inta sida qaldan u tarjuntay oo faafisay ishaacada sheegaysa in gebi ahaanba dhulka uu khatar u galay inuu burburo. Waxaase saameynta ugu ballaaran kicisay wakaaladda Daily Express, taa oo ka qortay maqaal arrinkan, ciwaanna kaga dhigtay dhagax cabirkiisu dhan yahay 4 kiiloomitir ayaa ku aadan dhulka. Wakaaladda NASA ayaa ka digtay ka oo soo afjari kara horumarka aadanaha haddii uu ku dhaco. Isla ciwaankaas ayay isticmaaleen markii ay soo dhigayeen bartooda Twitterka. Laga yaabee in ciwaankaasi uu soo jiito dad badani misna ay furaan linkiga, balse wuxuu u horseedayaa in dadka ay aaminaan macluumaad qaldan. Page-ka rasmiga ah ee hay'adda ku shaqada leh in ay la socoto dhagaxaantan oo kale ee Asteroid Watch ayaa Twitterkeeda ku daabacday in uu si nabadgelyo inoo dul dhaafi doono. Sidoo kale wakaaladda NASA ayaa ku shaacisay page-keeda Twitterka in dhagaxan uusan ku dul dhici doonin dhulka, balse si nabadda u dul dhaafi doono, ayadoo beenisay warka ay faafisay Daily Express. Wakaaladda NASA ayaa si joogto ah ula socota hawada sare, iyadoo isku dayaysa in ay ka warqabto waxyaalaha ku soo aadan dhulka. Haddii ay dhacdana in qalabkooda uu soo qabto, waxay daraaseeyaan waqtiga uu ku soo aadayo dhulka, xawaaraha uu ku socdo, halka ay la egyihiin iyo weliba inta uu u soo dhowaan karo. Dhagaxan hadeertan warkiisa lahayana, wakaaladda NASA ayaa la socotay 20 sano ee ugu dambeysay. Dabcan way jiraan dhagaxaan ka yimid cirka saameyn ku yeeshay dhulka, sida ka dhacday dalka Russia sanadii 2013. Dhagax loogu magac daray Chelyabinsk ayaa maalinimadii 15 Abriil 2013 ku dhacay magaalada Chelyabinsk ee dalkaasi Russia, asagoo ku socday xawaaro dhan 62,000 kiiloomitir halkii saacba. Dhagaxan ayaa ka iftiin badnaa qoraxda markii uu hawada ku qarxay, waxaana laga arki karay masaafo dhan 100 kiiloomitir. Tiro dhan 1,500 qof ayaa ku dhaawacantay, si toos ah uma saameyn, balse waxyeeladii ka dhashay ayay ku dhaawacmeen. Haba ugu badnaatee miyaaradihii ku soo daatay. Wuxuu sidoo kale waxyeelo u geystay 7,200 oo guri, kuwa oo ku kala yaala 6 magaalo. Waxa ugu yaabka badnaa ee ka cabsi geliyay dadka ayaa ahaa in cabirka dhexroorka dhagaxani uu ahaa keliya 20 mitir, wuxuuna geystay dhibaatadan aadka u weyn. Xitaa si toos ah magaalada uguma dhicin, ee wuxuu ku dhacay qaybaha buuraha ahi. Waxayna isu su'aalayaan, bal ka waran dhagaxyadan dhexroorkoodu yahay million miles. Si kastaba ha ahaatee, taasi kama dhigna in dadku ay xukumaan in la gaaray xilligii dunida lasoo afjari lahaa. Taariikhda haddaan dib u milicsano, ma ahan markii ugu horeysay ee la sheego in la gaaray dhammaadkii dunida. Waxaa in badan dhacday in dadka lagaga cabsiiyo in la gaaray dhammaadkii dunida. Tusaale, sanadii 10aad ee miilaadiga waxaa dhacday in la faafiyey warar sheegaya in la gaaray dhammaadkii dunida, taa oo ay dadyo badani aad u aamineen. Markii ay dhici weydana, waxaa dib loogu dhigay sanadii 2000. Haddana markay dhici weyday, waxaa la sheegay 21 March 2011 in ay tahay maalinka ugu dambeeya ee dunidan. Markayse dhici weyday, waxaa timaaday ishaacadan sheegaysa in meere aad u weyn uu ku dul habsan doono dhulka, misna uu burburin doono 29 Abriil 2020. Dadku mar waliba wax bay sheegi jireen, balse jawaabtu waxay tahay: yas'aluka an-naasu 'ani as-saaca, qul innamaa 'ilmuhaa 'inda Allah, wamaa yudriika la'alla as-saacata takuunu qariiba. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa ka warhaya markay tahay in dunidani laga hayaamo. Halkan ayaan kaga baxayaa muuqaalkan. Waxaan filayaa in wax badan ay kaaga ifeen arrinkani. Waxaan alle inuu weydiinayaa in uu xaqa iyo wadada toosan inagu hago. aad baad u mahadsantihiin. fadlan la sii wadaaga asxaabtiina, wixii fikir ahna noogu reeba qaybta commentiska. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. amaana Allah.